muuqaalkan adiga ayuu gaar ku yahay sababtoo ah muuqaalkan wuxuu kaa caawin doonaa inaad gaartid guusha ayaa qofka bini'aadamka waxay ka dhigtaa mid markaasi noloshiisa han iyo himilo markaasi uu ka yeesho. fadlan nala daawo muuqaalkan, nala dhammayso. haddii aad markaasi nagu cusub tahay nagu soo biir. haddii aad horey nala joogtay fadlan commentiga noogu reeb haddii aad ka faa'iiday muuqaalkan wax. guushu waxay u baahan tahay dadaal, waxay u baahan tahay rafaad, waxay u baahan tahay inaad guntiga dhexda ka xidhatid, inaad ogaatid maalimaha nolosha adduunku waa maalimo kooban. waxaa lagaa doonayo waa wax weyn adduun iyo aakhiro. waxaa lagaa doonayo wax soke ma aha, waa wax weyn inaad dhaqaaqdid, ficilina la timaadid. kuma lihi seef qaado oo orod, kuma lihi meelaha boodbood. qorshe dhigo, waxaad u dhiganaysid waa inuu noqdo wax weyn, waa inaad dhaqaaqdid, waa inaad ficil la timaadid. laakiin inaad meel fadhidid waad ku uri. biyahu hadday dhaqaaqi waayaan oo meel ay fadhiyaan way uraan. shimbarka quruxda bana ee bulbulka la yidhaahdo waxay yidhaahdaan haddii la xidho qafas waa shimbir qurux badan, laakiin meel baa lagu xidhay wuu dhimanayaa. libaaxu muxuu u noqday maxaa loo yidhaahdaa waa boqorka kaynta. dhaqaaq buu la yimid oo kaynta gebigeygii buu la yimid. adiguna haddaad dhaqaaqi weydid waad uri, haddaad dhaqaaqi weydid qiimo yeelani maysid, waad dhiman. haddaad dhaqaaqi weydid waad dulloobi. bal libaax soo qaado xidh u dulloobi, meeshaasu ku meeraysan. libaax baad waad ka weyn tahay libaax. waxaad tahay qof ilaahay uu ku karaameeyey. sidaa awgeed haddaad isku xidhid oo dhaqaaqi weydid qiimo yeelani maysid, waa dulloobi. dhaqaaq waxaa la yidhaahdaa faraska maxay boqoradii iyo dadka lacagta u koraan? wuu dhaqsaday, wuu dhaqaaqo, xoog buu orday. dameerka yaa kora? miskiinka iyo ka addoonka ay yidhaahdaan yaa kora. dee doqon markuu noqday kaasaa qaata. laakiin inaad faras noqotid ayaa loo baahan yahay. ilaahay waxa uu yidhi وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. qofka waxa u sugan uu Ilaahay yiri waxa uu leeyahay wuxuu u orday uu u gucleeyay uu ku dadaalay waxaas uu leeyahay. adduunyo aakhiro waxaad u orad ee u dadaashid ee qorshaysid ee fikirtid ee habeen iyo dharaar aad u soo jeedid xulumkaaga noqdo kaasaad gaadhaysaa. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ابن بطوطة waxa uu doonaya caalamka inuu ogaado 30 sano adduunka ku wareegay. kitaabkiisii buu qoray, wax uu ka tagay male, wax walba ayuu ku qoray. wuxuu noqday xadiid ad-dahr, waxa laga sheekeeyay adduunka ayuu noqday. cajiib buu noqday. waa markuu dhaqaaqay ayuu sidaa noqday. adigu caajiskan muxuu yahay ku saaran? wahsigani muxuu yahay? hurdadan badan maxay tahay? seexo soo toos, seexo soo toos. waad isbedeli kartaa, waxna waad bedeli kartaa. daqiiqada quraad waxaad tasbiixsan kartaa kun tasbiixo halka daqiiqo. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تري بقول تسبيح أي الله يمن كرتاه. waxay yidhaahdaan daqiiqada quraad safxad qur'aana ayaad akhriyi kartaa. suuratu اlikhlaas qul huwa allahu axad 3 jeer ayaad ku akhriyi kartaa halka daqiiqo. waqti buu ilaahay ku siiyey, waad shaqaysan kartaa. shaqadu ceeb ma aha, dadaalku ceeb ma aha, ninnimo weeyaan. wax la isku caaye ma aha. wax noqo, shaqayso.
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysatay muuqaalkan intaan ku kulmi doono muuqaal la mid ah waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.